tawdii ku soo dhawaada oo muuqaalaad u kooban oo jeclaan inaan kula wadaagno arrin muhiim ah oo ku saabsan boqorka Ingiriiska ee King Charles III waa shakhsiga ugu taageerada badan diinta Islaamka muslimiinta mar walbana difaaca markii diinta Islaamka la weeraray iyo muslimiintaba marka ay timaado qoyska boqortooyada Ingiriiska waa qofka koobaad weeye waxa laga hayaa oraah fara badan oo taariikhi ah oo aan halkan idinkula wadaagi doono qur'aanka ayuu soo daliishanayaa waxa uuna sheegayaa diintan islaamku inay horumar wanaag ka shaqaysay haddii aan dhinaca sayniska xisaabta sharciga taariikhda mediciinka engineerinka beeraha biyaha iyo waxyaalaha la halmaale ee aasaaska nolosha u ah waxaa laga hayaa inuu yidhi islaamku ma kala qaadanin nolosha iyo bay'adda uu ku nool yahay iyo tawxiidka oo iswata waxaan rabaa inaan idiin soo daayo muuqaalo googo'an oo kooban oo asagoo hadlaya midaan koowaad aayad qur'aan ayuu daliishanaya war waxa uu yidhaahdo aynu wada dhegaysan waaya raalli ahaada wax yar waa hagaag itself and take a purely objective view. Now, from what I know of the Quran, again and again, it describes the natural world as the handiwork of a unitary benevolent power. It very explicitly describes nature as possessing an intelligibility, and that there is no separation between man and nature, precisely because there is no separation between the natural world and God. It offers a completely integrated view of the universe where religion and science, mind and matter are all part of one living conscious whole. We are therefore finite beings contained by an infinitude, and each of us is a microcosm of the whole. This suggests to me that nature is a knowing partner, never a mindless slave to humanity, and we are her tenants, God's guests for all too short a time. If I may just quote the Quran. Have you considered, if your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water? This is the divine hospitality that offers us our provisions and our dwelling places, our clothing, tools, and transport. Why? haddii aan haddaba usoo noqonno halkaas waxa uu ka yidhi saad maqlayseen buu wuxuu yidhi haddii aan isku daya buu yidhi qur'aanka inaan toos aayad ogaga soo qaato aayaddu ka soo qaatay dabcan af ingiriis buu ku sheegay waxa uuna ka hadlayaa oxford jaamacadda oxford center for islamic studies qaybta u gaarka daraasaadka islaamka taariikhda lagu aruuriyo ee bulshada dunida oo dhan ay markaas usoo daalacan karto ayna arki karto oo goob caana ah aayadda quraanka uu daliishanayo waxay ku jirtaa suurad kulligeen aan wada naqaano laakiin waxaa laga yaabaa afka uu ku yiri inaanaan fahmin intaasina ay sababtay inayna hareer marto and that is where Brit Somali TV comes in si aanu u fahanno waxa uu sheegayo aayadda uu daliishanayo maxay leedahay aayaddu waxa ay leedahay waa aayadda u dambaysa suuratu mulk oo ah 30 aayadood aayadda u dambaysa weeye maxay leedahay qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'iin ayay leedahay aayaddaas ayuu daliishanaya waa King Charles xilli uusan boqor ahayn weeye oo 93 ahayd khudbada uu ka jeedinayay jaamacadda ayuu wuxuu daliishaday in haddii ilaahay biyahan uu cirka ka keenayo ee dhulkuna uu weeraynayo hadduu ilaahay khasabaddaa xirto faman ya'tiikum bima'in ma'iin yaa biyahan macaane xareeddaa oo kale idin siin kara waxa uu yidhi waa shayga keliya ee nolosha gundhig u ah waa aasaaska bini'aadanka waa aasaaska noolaha oo dhan sidaa ayuu yidhi aayaddan keliya ayuu soo daliishaday markuu ka hadlayay arrintan biyaha laakiin meel kale aan kaa tuso suuratu al-anbiya
haddaad tagtid maxay leedahay أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رقدا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون مويس الربينين معلم كساينس كل واحد إلهي سبحانه وتعالى قيل جرح كري الله اللي مايو كان أو حبة قرني الله اللي مايو ولما الساينس كأيو إلهي كل الله آياتاس وليه هي هدي إن wax walba oo nool ilaahay wuxuu ka abuuray aasaasna uga dhigay biyo qaybta horena ay wuxuu ka hadlay cirkiga dhulku inay markii hore jumle isku dhagan ahaayeen fafataqnaahuma way isbilidam asanda annaga kala qaybinay oo kala goynay waa meesha culimada saynisku ay ka tiraahdo big bang baa dhacay oo qarax baa dhacay annagu qarax baa dhacay ma leenin xanuunay taqdiir ilaahay iyo ilaahay qorshihiisa uu dejiyay ayay waxaan ku dhacay وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سيديبو كو اوغادين النبي محمد كون يا 400 سنه كور waxay shalay ogaadeen saynisyahaniinta reer galbeedku in wax walbo nool ay biyo salka ku hayaan markay cirka hadda aadaan say sheegaan waxay yiraahdaan waxaan eegaynaa meeshaas inay biyo leedahay ko hadii biyo leedahay nolol baa ka suurtagal ah waa fahamtay King Charles waan dib ugu noqonaynaa maxay oo kale uu ka yiri waxa uu yiri haday xisaab noqon lahayd sida aljabra oo kale eray carabi ah sharci ahaan lahayd taariikh ahaan lahayd medicine ahaan lahayd engineering ahaan lahayd beera ahaan lahayd islaamka ayaa horumar la taaban kara ka gaaray annaka reer galbeedkaana islaamka inaan darsi ka baranayaan u baahanaa yaasas oranaya boqorka saddexaad King Charles III dib baan ugu noqonaynaa hadalkiisa qaybo kala duwan ayaanu tegaynaa haddii barnaamijkan oo aad markii ugu horreysay Brit Somali TV la kulantay daawadayaal waxaan idin leenahay fadlan ku xirnaada oo rukunta let's go The earth is robust and prolific, but also delicate, subtle, complex and diverse, and so our mark must always be gentle, or the water will disappear, as it is doing in places like the Punjab in wuxuu weli daba socdaa biyihii iyo nolosha say aasaaska ugu yihiin asagoo aayaddaas quraanka soo daliishaday haddii aanan biyaha weelaynin oo aanan ka faa'iidaysanin oo aan la daadinin oo aan la khasaarinin oo aan laga maxad celin ilaahay inuu nasiib uu ku leeyahay sida Punjab ka dhacday oo kale biyo la'aan baa dhacaysa dadka iyo duniduna halis bay gelayaan darsi ka bara diinta islaamka Muhammadur Rasuulullah salawaatu rabbi waaye waxaan u gudbaynaa qayb kale oo aan rabo inaan waqtiga idin beeqaamiyo haddii ilaahay yiraahdo wuxuu ka yiri islaamka iyo civilization let's listen philosophy and the spiritual perception of life together, just as the Islamic tradition at its best and richest has always done, then they tend to complement each other rather well. Take the difference this made in the 9th and 10th centuries. As an example, during the so-called Golden Age of Islam, it was a period that gave rise to a spectacular flowering of scientific advancement, but all of it was underpinned by an age-old philosophical understanding of reality and grounded in a profound spirituality, which included a deep reverence for the natural world. Theirs was an integrated vision of the world, reflecting the timeless truth that all life is rooted in the unity of the Creator. وهاك halkan wuxuu ka hadlayaa sidaad maqlayseenba the golden age of Islam markii muslimiintu Spain ay xukumayeen 800 sano ka hor waxay ahayd buu yiri ubaxii adduunka u soo baxay ee horumarka sayniska iyo cilmiga dunida gaarsiiyay xilligaas oo reer galbeedku ay ku noolaayeen mugdi waa dark ages waxay dhahaan markii ayagu mugdi ku noolaayeen islaamka meesha uga taliyo dhan layr baa ka baxayay buu yiri dunidana musbaaxeedii ayuu sababtaas awgeed ayaan barnaamijkan u soo qaadanay sababtaas ayaa la sheegaa la xaqiijiyay inuu yahay qofka kaliya ee muslimiinta iyo islaamka difaaca afka carabiga ayuu baranayaa videogan dhexdiisa uu ka sheegayaa luqadda carabiga ayaan bartaa buu yiri si aan u fahmo kitaabka ilaahay qoraal ayuu sidaas ku yiri raalahaada qoraal ayuu sidaas ku yiri luqadda carabiga ayaan bartaa si aan markaas u fahmo quraanka kariimka aan u fahmo ayuu leeyahay ayuu hadda ka hor yiri hadalladiisa waxay ku xasuusin karaan suurat ash-shu'ara
وإنه لتنزيل من رب العالمين ربي باسود جي كتاب كان ويا لوسودي وصمدي عرك دولك اسكو خيريه نزل به الروح الأمين جبريل بانوسودي من أو أمين هديت قاليا لسودي بي دوني لو حاجايو قف آمنا ولوسودي أو دبدنا حاجة لك يعني على قلبك لتكون من المنذرين قلبك النبي محمد بالغو كيدي oo sababtu waa maxay litakuuna min almundiriin kuwii horay u digi jiray inuu ka mid noqdo luuqadee lagu soo dejiyey calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin charles wuxuu leeyahy inaan carabiga bartaan rabaa saan kitaabka u fahmo fariinta ilaahay inaan fahmaan doonaya qoraalka uu halkaa ku yidhi I will link in the description you read it for yourself now golden age of Islam markii Yurub ay mugdi ahayd ay korontadu ka dansanayd korontada aqoonta cilmiga sayniska Baghdad gabdhaha muslimiinta ay indhahay qalayeen halkaas islaamku u gaaray wax walba reer galbeedka laga keenay maskaxdayaan laga gumaysanin dhegeyso waxa uu ka hadlayo King Charles III dib baan ugu noqonaynaa muuqaalkiisa waa yahay soo dhawaada. This is the testimony of faith, is it not? Embodied in the contemplative implication of the formless essence of the Quran's hakika. It is the notion of Tawheed, the one. arrintan waxay caddaynaysaa buu yidhi xaqiiqada qur'aanka iyo tawxiidka ilaahay the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allahu ahad ayuu ku leeyahay si kale waxaa laga yaabaa inaadan weliga arrintan ogeyn waxaan ku faraxsanahay ilaahay inuu noo adeegsaday inaan waxaan iyo waxyaalo kaloo markaas leenahay bulshada muhiim bay yihiinba inaanu idiin soo dayno afkiisaad ka maqasheen waa xaqiiqada qur'aanka waxa uu soo wadaa ka weyn soo dhawaada mar kale Brit Somali TV ayaa daawanaysa waayahay dib aan ugu noqon ku soco King of all things within the embrace of the divine unity. Islamic writers express it so well. Ibn Khaldun, for instance, who taught that all creatures are subject to a regular and orderly system. Causes are linked to effects. There you go. Ibn Khaldun ayuu soo daliishanaya uu leeyahay nidaamkan iyo dunidan iyo koonkan siduu ilaahay u abuuray waa nidaam ku socda taqdiirka ilaahay oo wax walba nidaamkii loogu talagalay u socda ayuu soo daliishanaya waxaan rabaa qaybta tawxiidka oo ka hadlayna dib ugu celiyo because tawxiidku waa wadnihii weeyaan waa noloshii weeyaan meesha naftu ay ka biligtiraahdo hadaan halkaas wax ku jirinin qolof maran baa tahay waxaan dib u celiyo videogan iyo dulqaado war King Charles inaad maxaad the richest has always done, then they tend to complement each other rather well. Take the difference this made in the 9th and 10th centuries. As an example, during the so-called Golden Age of Islam, it was a period that gave rise to a spectacular flowering of scientific advancement, but all of it was underpinned by an age-old philosophical understanding of reality and grounded in a profound spirituality, which included a deep reverence for the natural world. Theirs was an integrated vision of the world, reflecting the timeless truth that all life is rooted in the unity of the Creator. This is the testimony of faith, is it not? Embodied in the contemplative implication of the formless essence of the Quran's hakika. It is the notion of Tawheed, the oneness of all things within the embrace of the divine unity. maqlaysaan khiyaarta tawxiidku waa uu ka hadlayaa muslimiinta waxaan rabaa haatan inaan geeyo qayb kale dad waxaan arkayn dad waxaa jira leh ninkaan waa gaal ninkaan waa kan Charles Muslim ma aha laakiin diinta islaamka inuu danaynayo ayuu dadka tusay public ayuu ka hadlay muslimiinta iyo tawxiidka ayuu soo dhaweynaya ilaahay wanaskiisa ayuu ka hadlaya qur'aan ayuu daliishanaya Ibn Khaldun ayuu daliishanaya iyo culimo kale oo taariikhda islaamka gool dahaba ka gashay qof kale oo royal family ka tirsan oo la og yahay public loo og yahay
ama dadka qaarkood ay private ogyihiin anugu ama ka warqaba ama saaxiibada ay ka warqabaan ma jirto sida ninkan ooga hadlay islaamka iyo muslimiinta iyo inuu difaacay qaybo kale oo waxaa jira uu leeyahay islaamka looma nasbayn karo argagixisada iyo kuwa isqarxinaya islaamka looma nasbayn karo waxayna ka dhigan tahay buu yidhi adigoo dowladda waddanka ingiriiska yidhi carruurta la faraxumeeyo dilka daroogada maandooriyaha dhibaatada jirta waa wax qof walba uu ka sameyn yahay haddii inaan sidaas ogolayn sidee u odhan kartaan diintan islaamka nadiifka ayaa qayb ka ah kuwa carruurta xasuuqaya umulaha dooxaya king charles baa sidaas kugu leh the third waxaan rabaa inaan u gudbo haatan qayb kale oo hadalkiisa ku saabsan videoguu dheeryahay aan raba inaan soo qaato inta ay taas socoto aayaddan qur-aanka iska xasuusno dhagdhe waayahay waxaanu aadaynaa haatan daqiiqadaha kale ee videogan ku jira ee hadalkiisa aan raba inaan kasoo qaadana haddii alla yidhaahda waayahay waan soo dhaweynaa meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada intaad soo dhawaanaysaan waxaad dhigi kartaan god save the king ilaahay boqorka ha badbaadiyey but it clearly acknowledges which book is the first. That book is the great book of creation, of nature herself, which has been taken too much for granted in our modern world and needs to be restored to its original position. So, ladies and gentlemen, with all this in mind, I would like, if I may, just to set you a challenge that I hope will be conveyed beyond this audience today. It is the challenge to mobilize Islamic scholars, poets, and artists, as well as those craftsmen, engineers, and scientists who work with and within the Islamic tradition, to identify the general ideas, the teachings, and the practical techniques within the tradition, which encourage us to work. Why? Halkan arrin muhiimadeeda la ayuu ka hadlayaa waxa uu leeyahay waxaan rabaa in aan challenge idinla sameeyo waxaan rabaa audiencekan halkan jooga intiinaan idaawanaysa ka maahanay dunida in la gaarsiiyo in muslimiinta aqoon-yahaniinta ah culamaa udiinka waxgaradka injineerada science yahanka muslimka ah in la isu keeno oo xal loo helo dunidan eeg diinta yuhuudda xal kama raadinayo diinta kirishtaanka xal baan ka raadinaya kuma oran buuda warkiisa daa hindida wararkooda daa waxa uu leeyahay culummada islaamka iyo diintooda ha la waardiyeeyo xalna u keenaan dunidan sii gabaabsanaysa iyo dhirtaan aanu jarayno iyo deegaanka oo aanu nabaad guurinayno oo mawduuciisu wuxuu ku saabsan yahay ah wuxuu soo qaadan karay culummada sayniska oo dhan islaamka ayuu daliil usoo qaatay god save the king inaad tirahdaan maxaa idin diiday inuu ilaahay hanuuniyaa laga yaabaya hadduu ilaahay hanuuniyo oo muslim ka dhigo saamayntuu dunida ku lahaan kara bal videogan yarkaaba intaasoo saamayn yeeshay ka waran haddii uu ilaahay soo hanuuniyo cumar buu ilaahay shalay soo hanuuniyey iyo rag kale oo aad u foga khaalid ibn waliid baa lasoo hanuuniyey ood ogeyd waxa uu ka dhigay buurta dabadeedii so hidaayad ilaahay dadka diinta aan laga xigsanin waxaan rabaa inaan sii daayo qayb kale dabadeedna aan soo gabagabeeyo waan kaga mahad celinaya daawashadiina muuqaalkan iyo kuwa kale aan ka soo gelino subscribe saar Brit Somali TV lana soco insha allahu tacaala barnaamijyada halkaan aanu soo gelino work with the grain of nature rather than against it. I would urge you to consider whether we can learn anything from the Islamic culture's profound understanding of the natural world. waxaan rabaa buu yidhi in aad isku mashquulisaan oo aad waqti gelisaan in aanu darsi ka barano muslimiinta iyo islaamka inaanu darsi ka barano sidaanu dunidan u badbaadin lahayn gubanaysa ee sii kululaanaysa ee dhirtii la jarayo barafkii dhalaalayo ee halista ku sugan cid walba ma halis gelinaysa waa 2013 way muuqaalka sida to help us all in the fearsome challenges we face. Are there, for instance, any that could help preserve our precious marine ecosystems and fisheries? Are there any traditional methods of avoiding damage to all of nature's systems that revive the principle of sustainability within Islam? To give you an idea of what I mean, let me just offer a few examples drawn from the work done by my School of Traditional Arts, where
Project workers have shown that reintroducing traditional craft skills brings a coherence to people's daily lives, perhaps because they fuse the spiritual with the practical. Since I founded it, the school has helped restore these skills in places as far afield as Jordan and Nigeria. It also helps to build bridges within communities in this country, which have suffered the worst fractures. In Burnley, in Lancashire, for instance, project workers have been teaching children from many backgrounds an integrated view of the world using the patterns of Islamic sacred geometry. This is not just inspired the imagination of the children taking part, but their teachers as well. They tell me they've discovered a much more integrated approach to education, where maths and art are not alien to one another, but are seen as two sides of the same coin and directly rooted in nature's patterns and processes. In Afghanistan, I've only Afghanistan intuusan aadanin wax kale oo muhiim ah ayaa halkan ku jira uu leeyahay meel ka mid a dalkan Ingiriiska intuusan taasna wuxuu yidhi oo muhiim laftigeedu ahayd inuu yidhi islaamka waxyaala laga baran karo waxaa ka mid ah in marine lifeka xayawaanka badda ku nool in ay kala duwan malaayiinta ilaahay og yahay sidii loo badbaadin lahaa in laga qayb qaato islaamka ayaan ka baran karnaa iyo muslimiinta ayuu yidhi meeqa aayadood buu ilaahay qur-aanka kaga hadlayaa iyo axaadiis nebi looga hadlayaa badda waxaad xasuusan kartaa ilaahay badda mararka qaarkood tooska uga hadlay marajal baxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzaqun laa yabqiyaan uu leeyahay shalay ayay culummada saynisku ogaadeen nebi maxamed microscope buu haystay sidee ayuu ku ogaaday wuxuu ka hadlayaa jaaratiyada faraha badan uu leeyahay mid ka mid ah oo markaas dhalinyaro yaryar oo ardaya wax barayay islaamka inaan la kala qaadanin sayniska iyo xisaabta iyo culumta kale aan la kala qaadanin ee ay hal wax isku noqdaan sheekadiisu waa dheer tahay islaamka ma uusan kala qaadin buu yidhi maadiga iyo culumta islaamka ma uusan kala qaadanin hal wax oo jumlo ah ayuuna dadka u siiyaa buu yidhi meesha annaku reer galbeedku ay ku guuldaraysteen inay kala qaadaan oo xisaabta gooni loo qaado oo sayniska gooni loo qaado islaamku waa naga horreeya leeyahay halkan markay marayso waxaan rabaa arrin muhiim ah aniga adigu inaanu aan ka wada hadalno oo ah inaan nidhaahno alxamdu lillahi calaa nicmati alislaami wa kafaa biha nicma hadduu muslimo iyo hadduusan musliminin tawxiidka ilaahay waxba kuma saa'idinayso waxna ka dhimi mayso therefore annagu inaanu maxad celino weeye wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha al cimraan baa tira ayaga qaban inaan sii daayo king I recently managed to see the work being done under the umbrella of what we have called the Turquoise Mountain Foundation, an initiative I launched some 4 years ago, which is running similar education programs and craft training courses. It is also helping with the urban regeneration of the old historic quarter of the city by guiding people to start businesses using the craft skills they have learned. For example, in the building of schools, people are being shown how to use mud bricks, which are a quarter of the price of the concrete blocks used by other agencies. They're also resistant to earthquakes. Moves me to be reminded that from the perspective of traditional Islamic teaching, benevolence and bounty. Ladies and gentlemen, you have endured all this with patience and fortitude. Some people longing to answer their telephones. You have also given a very good impression of listening to my own personal thoughts on the perspective opened up by Islamic teaching. I've wanted to convey them to you because it always moves me to be reminded that from the perspective of traditional Islamic teaching, waxa uu yidhi waxaan rabaa marka horena aan jeclaa inaan fariintan islaamka ku saabsan quruxda badan ee idinla wadaago dareenkayga ayayna dhaqaajinaysaa buu yidhi ilo waaye waxyaaran ku sheega waxaa jira waxa la yidhahdaa fitra rabbaaniya ah qof kasta oo dunidan horey u yimid ama imaan doono wuxuu ku dhashaa inuu muslim yahay fitra rabbaaniya sidaa waxaa yidhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa maxamedun rasuulullah taariikhda islaamku say noo sheegtay calayhi salaatu wasalaam dareenkayga ayay dhaqaajinaysaa buu yidhi muusigu dareenkaaga ma dhaqaajin karo ruuxdaada ma ruuxi karo iyo qalbigaaga maxaa la yidhahdaa
maandooriya ma ruuxi karo laakiin fitra rabbaaniya ayaa halkan ku jirta fitradii ayuu charles ka hadlaya iyo waxa uu akhriyey ayaa isku qabtay dabadeedna inuu soo bulshada soo hor istaago oo ka hadlo ayuu go'aansaday wuxuu yidhi waa dareenkayga ayay dhaqaajinaysaa inaan fariintan quruxda badan la wadaago ee dhaqanka islaamka iyo horumarka iyo xadaaradda islaamka uu gaaray ku soco Destruction of the earth is represented as the destruction of a prayerful being. Whichever faith tradition we come from, the fact at the heart of the matter is the same. Our inheritance from our Creator is at stake. It will be no good at the end of the day, as we sit amidst the wreckage, trying to console ourselves that it was all done for the best possible reasons of development and the betterment of mankind. وهلاك داوديال muuqaalkan king charles aan ugu talagalnay in la wadaago aad ayuu u dheer yahay qoraal la fara badan ayaa laga qoray aan jeclahay qaarka hoos soo qabta haddii ilaha yiraahdo idinku akhrista turjunta fahma dareema ninkaanu muslim ma ahan intaan ognahay laakiin waxa uu islaamka iyo muslimiinta ka yiri saameyn ayay dunida ku leeyihiin ilaahay inuu soo hanuuniyana waxba kuma ahan ilaahay wax caajis geliyaa ma jirto عمر شوي سوء أنوني يرجي كلا تاريخ ذا بارش الذهب كجري كفوا هذه قال لماذا إلهي مقلب القلوب وياه رحمة دي سدت فيها لجوه الاشتاقي مركب حنج على السنة أنت إذا كان إذن لو ذاقو هذا الله ذا لجسوا قري لجسوا حكتي يكوف ربنا ويرنا أي سنيش وتجينا كل ذلك كسوق لكن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن سودري شنو كما يسمي هبي أسبوا هذا بقركي كينج تشارلز الثالث إذن كأي داوني بقرتويد المسلمين تأي شرفتي خلال مضغها مدحوينها المستقبل قاعد نسعود سيني انت كانوا خلدي بوكل مدونا سوالي جديدة مفتين في الله رحيم